السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتي قاليقاد ياد باندي سلام ميل كستو دويدا ka joogtaan ba fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysan soo boqotay channelka subscribe noo saar sidoo kale video-ga like gare oo share gare oo la wadaaga saxabtada asxaabtayda qaaligaasad horeba iga barateen caawa waxaan idin wadaa barnaamijkeeni toddobaadkii social media kaasi aan ku soo bandhigno amba ku qaada dhigno amba fikirkeyga iyo aragtidayda aan kaga dhiibino hadba waxa social media toddobaadka amba maanta dhex socda hadaba maxaa caawa ama imika just know social media dhex socday run ahaantii anigoo Facebook iska dhex wareegay ayaa waxaan arkay run ahaantii war aad iyo aad iga naxdiyay talo warkaasi muxuu noqon doonaa warkaasi waxa weeyaan laba qodob shalay buu dhacay qodobna isla caawadan buu dhacay isla maanta hadba goortay ku tahayba hadii aan ku horeeyo qodobka koobaad waxa weeyaan qamar suugaani oo run ahaantii aan war aad iyo aad u naxdin badan idin ka hayo inankii qamar suugaani ee ku sugnaa magaalada Muqdisho ee fanaankeenna ahaa ayaa waxa dhacday inuu imaado wadankii uu u dhashay ee Soomaaliland markii uu wadankii uu u dhashay ee Soomaaliland imir rabay amaba imid muxuu la kulmay run ahaantii qamar suugaani muu soo raacay wax diyaarada wuxuu soo raacay safarka dhulka kaasi oo noqon kara gaari ama waxyaabaha la midka ee dhulka mara run ahaantii wuxuu yimid magaalada Garowe uu ka soo socday marka alaala markii uu marayay berbera ayaa waxa dhacday in inankii qamar suugaani la xiro oo run ahaantii si aan shaxuma loola dhaqmo la xiro gibigiisiiba hadaba miskiinka yar ee maxaa la yiraahdaa beristoonadka ee inanka yara sababta loo xidhay maxay tahay war kale aan idinka daba geeyo hadii aan u gado qodobkeeni labaad qodobka labaad oo ah nin la yiraahdo Maxamed Cumar Carte ayaaba shalay tole si kalsooniya uga soo degay madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa kaasi oo ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii Soomaaliya soo kale ahna imika baarlamaanka Soomaaliya ayaaba si kalsooniya uga soo degay madaarka hay'away ninkan iyo ninkaas maxay ku kala duwan yihiin inanka yar ee bariiska doonta ee run ahaantii la xirayo iyo ninka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka soo ahaa abtunowna maxaa la yiraahdaa baarlamaanka Soomaaliya wayba isaga loo xiri waayay sida kalsoonida leh uu uga soo degay Cigaal International Airport run ahaantii waxay war saxaafadeed soo baxay lagu sheegay inay Soomaaliland tiri qof kasta oo xilka hayay Soomaaliya hadii uu goob fagaara ka sheego in uu xilkaas iska casilay oo aanu aaminsanayn midnimada Soomaaliyeed in ay run ahaantii iska cafin doonto abtunow lama hayo Maxamed Cumar Carte Qaalib meel uu ka sheegay in uu xilka Soomaaliya uu hayay gabi ahaan buu iska casilay lamana hayo maxaa la yiraahdaa meel uu ka yiri midnimada Soomaaliyeed ma jirto hadaba maxaan oran karaa Soomaaliland ma qabyaalad baa shaqeynaysa mise caqliga shaqeynaya run ahaantii anigoon hadalka idinku badinayn waxaan idin leeyahay caqligu ha shaqeeyo balse laakiinse qabyaaladu yaanay shaqeyn asxaabtayda qaaliga aad iyo aad baan idin salaamay meel kastoo dadweynaha ka joogtaanba barnaamijkeeni yaraan idin wada ee degdeg ah halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan idinkaga tagayaa intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono sida iyo salaam calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh